الدولة وبوبنا سكراف وطن كان راشين برواقات العق دون لكين على الروا مركوب كان يجوجي سيسا دي بلوكلير ليلين نيهو وقت حاضر كهذا اللي جو إن حبك أنا قبتين تلاقي قاضي آدي هذا مصدوينا dhawaan waxaa la filayaa inuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qayb galo shir ay la doonto qaramada midoobay shirkaasi oo ajandihiisu yahay sidii cunaqabateenka hubka Soomaaliya saaran loo qaadi lahaa haddaba waxaana la hadlay qaar ka mid ah shacabka reer Muqdisho kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu kala aragti dhiibtay hadaladoodiina waxa ka mid ahaa waan taageersanahay marka waxa way ciidan samaysanay dawladda samaysanay haddana macnaha dawladda aan gacmo maran wax ma shaqayn karto saas awgeedan aan u taageeraa inay macnaha hubkii loo fasaxo oo noqdo mid ay xafido dawladda oo gacan kale u sii garan gacado kale u sii ama cadow gudaha jira u sii garan taasan ay sanahay magacaygu waxa la shooriyo Umar Aliyaada way haboonta in cunaqabateynta laga qaado sababtoo anaga amisom waxay noo tahay malaha waxaas waa ka saarina dib malaha waa ka saarina waxaas wax dhibaato leh Soomaaliya ma ka weyn qabiil wax macna u leeyahay malaha waaka Soomaalida baayas وبوب معاه راشين وعلى روح انت الروا وطن كان لعتو جوروس العيال الروا وبوب iyo waxaas afaraas ma keenay wadan kan lacag la keenay umadu waa baahin saddex waqti toos ma helaan waxa uu baaqa dawladda وبوبنا iska dhaaf wadan kan raashin برواقات العق دون لكين على الروا مركوب كان يجوجي سيسا دي بلوكلير ليلين نيهو وقت حاضر كهذا اللي جو إن حبك أنا قبتين تلاقي قاضي آدي هذا مصدوينا Soomaaliya sababtoo ah anaga waxaan u baahanahay in hubkii laga qaado anaga isku filnaano ciidamada shisheeye inaga baxaan ayaan u baahanahay ciidamada shisheeye hal askari anaga dheeri uma baahnin marka ciidamada dhibaata nagu hayaan in hubkii laga qaado aniga ku faraxsanahay shakhsi ahaanteedii oo qabateenta laga qaado aad ugu faraxsanahay shaqada madaxweynaha uu hayn oo ku bogaadina iyo dadaalka uu hayo ahlan wa sahlan Mawlid Ahmed Nuur raadiyaha TV-ga Danan magaalada Muqdisho